Sahan lagu sameeyey in ka badan hal, 3 oo xidigood ayaa daaha ka qaaday garaacyada iftiinka ee aan la sharaxin. In ka badan 60 sano ka hor, raadinta sirdoonka ka baxsan dhulka SETI waxay si rasmi ah uga bilaabatay Project OSMA ee Greenbank Observatory ee West Bank, Virginia. Waxaa hogaaminaya irbixiyeenkii caanka ahaa ee Frank Drake oo sameeyey isleegta Drake. Sahankani waxa uu isticmaalay saxanka 25 mitir (2 foot) ee kormeeraha si uu ula socdo Epsilon Eridani iyo Tafeti, 2 xidigood oo u dhow qorraxda, intii u dhaxaysay Abriil iyo Luulyo 1996. Tan iyo markaas, sahanno badan ayaa lagu sameeyey mawjadaha dhaadheer ee kala duwan si loo raadiyo calaamadaha dhaqdhaqaaqa tiknoolajiyada, loo yaqaan technosignatures, ee ku wareegsan xidigaha kale. Iyadoo aan la helin cadaymo dhammaystiran oo tilmaamaya joogitaanka ilbaxnimo horumarsan, waxaa jiray kiisas badan oo saynisyahanadu ay meesha ka saari waayeen suurtagalnimada. Warqad dhowaan soo baxday, saynisyahanka rugcadaaga ah ee NASA Richard Stanton ayaa qeexaya natiijooyinka sahankiisa sannadaha badan ee in ka badan hal 3 xidigood oo qorraxda u eeg calaamadaha SETI ee indhaha. Sida uu tilmaamay, sahankan ayaa daaha ka qaaday 2 garaac oo isku mid ah oo degdeg ah oo ka yimid xidig qorraxda oo kale ah oo qiyaastii 1 sano iftiinka u jirta dunida, kuwaas oo u dhigma garaacyo isku mid ah oo ka yimid xidig kala duwan oo la arkay 4 sano ka hor. Stanton waa mujaahid NASA's Jet Propulsion Laboratory (JIL), oo shaqadiisa ay ka mid tahay ka qayb qaadashada hawlgallada Voyager iyo u adeegida maareeyaha injineerinka ee hawlgalka soo kabashada cufisyada iyo tijaabada cimilada GRAE. Tan iyo markii uu shaqada ka fadhiistay, waxa uu naftiisa u huray raadinta sirdoonka dibadda SETI, isaga oo isticmaalaya teleskobe 762 int ee Shay Meadow Observatory ee Big Bear, California, iyo sawir qaade badan oo kanaal ah oo uu naqshadeeyey. Warqadda qeexaysa natiijooyinka sahankiisa ayaa ka soo muuqday joornaalka Acta Astronautica. Muddo sannado ah, Stanton waxa uu u isticmaalay qalabkan si uu u eego in ka badan hal, 3 xidigood oo qorax u eg calaamadaha SETI ee indhaha. Si ka duwan sahamintii SETIda dhaqameed ee adeegsatay anteenooyinkooda raadiyaha si ay u raadiyaan caddaynta gudbinta ka baxsan dhulka, SETI indhaha waxay raadisaa garaacyo iftiin ah oo ka dhalan kara isgaarsiinta laysarka ama habab tamareed oo toosan. Tusaalahan dambe ayaa la tixgeliyey sannadihii dhowaa iyadoo ay ugu wacan tahay Project Starshot, NASA's Directed Energy Propulsion for Interstellar Exploration (DEP-in), fikradda iyo fikrado isku mid ah oo isku dhafan. Sida Stanton uu muujiyey, goobta SETIga indhaha waxay raacdaa xididadeeda daraasad 1961 ah oo ay sameeyeen Stewarts iyo Townes. Waxay ku sababeeyeen in habka ugu wanaagsan ee sirdoonka dhulka ka baxsan ETI uu u soo diri karo ishaar indhaha oo ka baxsan xidigooda ay noqon doonto garaaca laser noose on daran. Garaacyadan waxaa lagu raadiyaa iyadoo la isticmaalayo qalab gaar ah oo ku jira mawjadaha infrared, spektra xalinta sare, ama iftiinka muuqda. Sida Stanton ee la xidhiidha caalamka maanta emailka, raadinta SETI way ka duwan tahay sahanada indhaha ee caadiga ah. Habkaydu waa inaan fiirsado hal xidig muddo 1 saac ah iyada oo la isticmaalayo tirinta sawir qaadista si aan u muunadeeyo iftiinka xidiga. Waxaa loo arko inuu yahay waqti aad u sarreeya oo loogu talagalay irbixiyeenada 1 microsecond sembles. Waqtiga taxanaha ah ee ka soo baxa ayaa markaa la raadiyaa garaaca wadnaha iyo dhawaaqyada indhaha. Qalabku wuxuu isticmaalaa qaybaha diyaarsan ee laga heli karo shelfka kaas oo lagu soo ururin karo nidaamka ku salaysanba. Ma hubo in qof kale uutan samaynayo waqti muhiim ah oo go'an. Anigu kama warqabo wax helitaan ah oo ku saabsan garaacyada la midka ah. Sannado badan oo raadin ah kadib, Stanton wuxuu soo sheegay signal lama filaan ah markii uu arkay Hadsideed 9389 oo ah xidig noocaf ah oo waxyar ka dhalaalaya oo ka weyn qoraxdeena oo ku yaal ururada Ursa Major. Sida laga soo xigtay wargeyska Stanton, calaamadani waxay ka koobnayd 2 garaac oo degdeg ah, isku mid ah oo isku mid ah oo 4 ilbiriqsi u dhexeeya kuwaas oo aan shaaca laga qaadin baaritaanadii hore. Kadib waxa uu ku sameeyey isbarbardhig ka dhan ah calaamadaha ay soo saaraan diyaaradaha, satellite-ka, hilaaca, jawiga, qaylada nidaamka, Sida uu sharaxay, dhowr waxyaalood oo ku saabsan garaaca wadnaha ee laga helay Hadsideed 9389 ayaa ka dhigay wax ka duwan wax kasta oo hore loo arkay. Xidigu wuu sii ifayaa faynter iftiin kadibna wuxuu ku soo noqdaa heerkiisa jawiga, dhammaan qiyaastii eber 2. Dhammaan 3 dhacdo, 2 garaac oo isku mid ah ayaa la arkay, kuwaas oo u dhexeeya 1, 2 iyo 4 seconds. Dhacdada saddexaad ee laga helay indho-indhaynta Janaayo 1 ee sanadkan laguma darin warqadda. In ka badan 5 saacadood oo baadhitaan ah, weligeed lama arag hal garaac oo u eg kuwan. Aqaab dhismeedka wanaagsan ee iftiinka xidiga ee u dhexeeya meelaha ugu sarreeya garaaca hore wuxuu ku soo noqnoqdaa ku dhowaad garaaca labaad ee 4 kadib. Qofna ma garanayo sida loo sharxo habdhaqankan. Ma jiraan wax la arkay oo u dhow xidigta sawir isku mar ah ama gadaalse.
sor oo si fudud u ogaanaya dayax-gacmeedyada fog ee u dhow xidig bartilmaameedsan. Calaamadaha caadiga ah ee ka imaanaya diyaaradaha, satellite-ka, saadaasha hawada, shimbiraha, iyo gebi ahaanba way ka duwan yihiin garaacyadan. Dib u eegis lagu sameeyey xogta taariikhiga ah ee calaamadaha la midka ah ayaa daaha ka qaaday 2 garaac oo kale oo laga helay had 217-14-51 Begasi, sanadka 2-21. Xidigtan taxanaha ah ee nooca waxa ay ku taal meel u jirta 5-6 sannadaha iftiinka dhulka waxayna la mid tahay cabbirka, hufnaanta, iyo da'da qoraxdeena. Sanadkii 1995-kii, irbixiyeenada ku sugan Observatoire de Haute Profondeur waxay ogaadeen in xidigan exoplanet ku wareegsan yahay gaas kulul oo tan iyo markii loo bixiyey Dimidium. Tani waxay ahayd mid ka mid ah kuwii ugu horeeyey ee loo yaqaan exoplanet ee abid la ogaado, iyo markii ugu horeysay ee exoplanet laga helay agagaarka xidig isku xigxiga. Wakhtigaas, ayuu yiri Stanton, calaamada waxaa la diiday inay tahay been ah oo ay sababeen shimbiraha. Si kastaba ha ahaatee, falanqayn faahfaahsan ayaa meesha ka saartay suurtagalnimadan dhammaan garaacyada la arkay. Fursadaha kale ee uu Stanton sahaminayo waxaa ka mid ah kala duwanaansho uu keeno jawiga dhulka, lagana yaabo inay sababto mawjadda naxdinta leh. Si kastaba ha ahaatee, tani uma badna sababtoo ah mawjadaha naxdinta leh ayaa lahaan lahaa inay ku dhacaan wakhti ku habboon si ay ugu beegaan labada garaacood ee indhaha. Fursadaha kale waxaa ka mid ah kala duwanaanshiyaha iftiinka xidigaha ee jirka fog ee nidaamka qorraxda, dayax-madoobadyada qayb ka mid ah, oo ay sababaan dayax-gacmeedyada Earth ama asteroids fog, iyo dhaqdhaqaaqa irifka oo cidhif toosan ah, sida lagu qeexay saamaynta Sommerfeld. Jaantus kala duwanaansho geeseed. Kala duwanaanshaha iftiinka agagaarka gees toosan ayaa sharxi kara calaamadda. Kooxda osmologi ee tijaabada URSS. Waxa kale oo jirta suurtogalnimada in mawjadda ufjiidadka ay dhalin karto garaacyadan, taas oo u baahan tixgelin dheeraad ah. Suurtagalnimada kale ee xiisaha leh ayaa ah inay noqon karto natiijada ET. Sida Stanton uu tilmaamay, wax kasta oo la bedelo iftiinka xidigahan waa inuu ahaado mid u dhow dhulka, taas oo tusinaysa in hawl kasta oo ET ah ay tahay in ay ku dhex jirto nidaamka qorraxda. Si kastaba ha ahaatee, Stanton wuxuu ku nuuxnuuxsaday in xog badan loo baahan yahay. Ma jiro mid ka mid ah sharaxaadahan oo runtii lagu qanci karo markan, ayuu yidhi. Ma garanayno nooca shay ee soo saari kara garaacyadan iyo inta ay ka fog tahay. Ma garanayno haddii calaamadda laba wadarka ah ay soo saarto wax noo dhexeeya annaga iyo xidiga ama haddii ay tahay mid ka timid shay wax ka beddelaya iftiinka xidiga iyada oo aan u dhaqaaqin garoonka dhexdiisa. Ilaa aan wax badan ka ogaanno, xitaa ma sheegi karno haddii ay jiraan waxyaabo ka baxsan dhulka iyo in kale. Waxaa jira dhowr tusaale oo ah SETI Optical, OSETI ama Laser SETI, oo ay ku jiraan dadaalka wada shaqayneed ee uu bilaabay Breakthrough Listen iyo iskaashatada nidaamka arrayga sawirka shucaaca tamarta leh Veritas. Si kastaba ha noqotee, habka Stanton wuxuu soo bandhigayaa fursado badan oo sahamin ah SETI mustaqbalka, kaas oo raadin kara tusaalooyin la mid ah garaaca wadnaha. Si taas loo gaaro, wuxuu soo jeedinayaa 2 hab oo muujin kara wax badan oo ku saabsan dhacdadan oo ka caawin karta irbixiyayaashu inay xadidaan xadidaadyo adag sababaha suurtagalka ah. U fiirso dhacdooyinka adiga oo isticmaalaya telescopes isku dhafan oo isku dhafan. Haddii shaygu uu u dhexeeyo xidiga iyo annaga, habkani waa inuu noo sheegaa sida ugu dhaqsaha badan ee uu ugu socdo xariiqda aragga iyo suurtogalnimada xajmiga iyo fogaanta. Sidoo kale, waxay noqon doontaa mid aad u xiiso badan haddii iftiinka xidiga la beddelo iyada oo aan shay u dhaqaaqin garoonka dhexdiisa. Daawashada dhacdooyinka telescopes kala soocay dhowr boqol oo kiiloomitir ayaa laga yaabaa inay muujiyaan in kala duwanaansho kasta oo wakhtiga garaaca wadnaha uu yimaado ay sabab u tahay oo kaliya kala duwanaanshaha wakhtiga iftiinka ee xidiga ilaa telescope kasta. Markaas, haddii kala duwanaansho laga yaabaa in si uun loo nisbayn karo xidiga laftiisa, waxaan yeelan karnaa in ka badan.